ها ودوها لكم وما سنتها حاجة لكم ودوها وصح وسيدة شرطي أمان كما هلين وأنا وحيالة جرى أو دانا ما عرفت هلين مركا هولقلك وهذا وجهي صدحات مريا هاتي أبا ما إذا ماذا قلبك سيدي بلان قولا أي كارين وجهي كوادي كيلا بعد وأقول قولي سنة كصدحات بس على شرطي inay soo abjiri doonaan baan rajaynayaa wejiga saddexaadna labadii weji oo kii hore iyo kii labaad oo kale ma noqon doona oo ka fududaan doonaa sababtoo tahay dee argixisada aadamiga soo duushay inta badnayd dhulkii waa laga saaray marka ciidamada Puntland oo geesiyaashaana waa hambaleynayaa waaya shacabka Puntland dowladda Puntland kulli waa wada hambaleynayaa guuleystaan leeyahay waaya siyaasi dagaalkan maxay kula tahay adigu dhinacaaga maadaama wejigii saddexaad la galay meelo badan oo ka mid ah Daacish laga qabsaday qiyaas ahaan intay kula tahay in lagu soo afjari karo kooxda Daacish حاجة لك من ما سنت سؤال في عمبا ويديسي دجال كان بشي سنة كي لبعض كوني أبريل لبعض بشي لو يتمنى صدق كوني بلودي دجال سيف عن لوس قرشي ولا باران دقي مركز دجال قاضي وإن إلى سنة إلى لحب الوضع شيء قرشي دجال دولة سيف عن قرشي سيسراكي شيء من غلق وسيدا مدحوين عبد الله مدن سعيد عبد الله الدني أو قرشي الله قرشي بوها marka waxaan rajaynayaa in lagu soo abjari karo dagaalkaas sida anigu khibrad ahaan aan u leeyahay ciidanka qalabka sida in lagu abjari karo ilaa adigu hadda wejiga saddexaad baa bilowday rabadaanka tobanka beri oo ka haray ilaa ciidda in lagu soo abjari karaan rajaynayaa sida aniga aqaanay dagaal sidiisaba markii la gelayo hawl badan buu u baahan yahay hawlihii wixiina waa u dhammaystiran yihiin si fiican baana loo qorsheeyey waana dagaalkii oo dad ajnabiya oo maaragtay aan Soomaali ahayn dad ajnabi ah cadow la dagaalamayo ilaa 77 ama 77 sida Soomaali loo yaqaanaan waa dagaalkii oo maaragtay ugu weynaa weeye aad iyo aad loo hambaliyay sida hadda maaragtay Mareykanku cadeeyay adduunka dhan cadeeyay deewaana ciidamada Puntland oo leeyahay iyo ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed oo dhan sidaan sheegayba cid hor istaagi karta ma lahan ciidan hor istaagi kara ma jiro geeska Afrika ciidanka qalabka sida Puntland ama ciidamada ama guud ahaan ciidamada qalabka sida dhan oo Soomaaliyeed ciidan hor istaagi kara ama u babacdhigi kara ma jiro geeska Afrika gaar ahaan ciidamada Puntland geesiyaasha mar labaad aad iyo aad baan u hambaleynayaa madaxweynaha aniga Saciid Cabdullaahi Deni waan hambaleynayaa oo dagaalka wejiga hilaac maxaa hilaac ugu magac daray halkoliga hilaac aad iyo aad buu maasay madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Deni ilaahay noo dhaxdhay ilaa markii hawlgal ku dhamaado ciidamadana waa la abaal marinayaa dalacsiin madaxweynaha taala loo dhisayaa waa geesiga Afrika waaye markaan ka nimaano calmiskaad iyo dagaalkaas docdo kale waxaa jira kaarka elektrooniga aqoonsiga qaranka oo Puntland ay diiday inkastoo xamar hadda ka bilowday bal arintaasi soo aragtaa حاجة لك من هذه أبو ما سنتهاي كاركاس دولة بلان وديدة وانصح دولة هذا فترة الكاهبة بسكوت يسيني كنت لكن دولة بلان وديدة مركب حندي لا كاركاس لما كان يكرر معاملة دولة بلان دولة بلان وكيد معانا وسكوت هنا عواقب حمر كل مياه يجناح بلان بدنا وماركت ووايا دولة فضل الكاهبة قدامها iyo dhibaatooyinka ay ka wado oo ay ku rabto gobolada Puntland inay ku agardaamayso oo aan ogahay waxyaalo badan inay ka wado ka joojiso haddii ka joojin weydo awalba dawlad ma yahay dawlad waxa weeye de fadhiido xamar ku eego awalba ahayd wadankaana waxa dawlad ka ah dalka iyo dadka ninkii u naxaya dawlad ka ah dawladda Puntland baa dalka iyo dadka dawlad ayada u naxaysa ayada ka naxaysa waa ogay dagaalkii argagixisada Daacish buuraha ayay waxay ku soo abjartay muddo kooban oo contemporary xasan sheekh maxamuud ciidamada xoogga dalka uu baabiyay caws weyn iyo masgawa iyo galcad iyo balcad iyo gololi uu 4 sano la dagaalamay argagixisada joogto oo leeyahay doorasho qof fiican qabanayaayo waa kaarkii argagixisadii iyo gobolka Shabeellaha Dhexe joogto oo balcad iyo gololi iyo dhulkaas oo qabsatay laakiin ciidamada xoogga dalka ay ka saareen iyo galcad iyo masgawa hadda koorna ciidamada Soomaaliya baabiyay
marka waxaan dhihi lahaa dowladda federaalka ha ka dayso dowladda maamulka puntland hagardaamada iyo dhibaatada ay wadda ha ka dayso hadday ka dayn weydana dee waxa weeyaan waxay ka yimaada cawaaqib xumada ka timaada ayadaa ka sheekayn doonta. waayahay siyaasi arrimo kalaa jiray khilaafka puntland iyo federaalka meeshii ugu sarreysay uu marayaa arrintan weliba dhinac ciidamada xataa waa la siyaasadeeyey oo dagaalkan waxay ahayd dowladda federaalka inay qayb ka qaadato oo dowladda federaalka kuma jirto dagaalka daacish maadaama urur caalami oo argixisa ay yihiin arrintaas maxaa ka leedahay? xaajile kamaano aad iyo aad baa u mahadsan tahay qayb kama ay qaadan xataa hambalyadii bay u quuri weyday ciidanka difaaca puntland iyo dowladda puntland guulaha ay gaadhibay xataa sidaas oran weyday inay xoogaha wax yaroo afka isha baarkeeda iyo qowda maqashii waxaana oo qaban iyo hadallada ciidanka daciif ay ku hadashay sida waxyaaladee waxay ahayd inay tiraahdo waxaan u hambalyeynayaa ciidanka puntland waxaan u hambalyeynayaa dowladda puntland dadka reer puntlandba may odhan si jilicsan bay waxyaalo jilicsan oo isha baarkeeda bay ku hadashay loogamana baahnaba waxba loogama baahna maray hadda ka hor tiri qaaraan baan soo aruurinayna qaaraan annagu uma baahnin dowladda puntland qaaraan uma baahna ilaahay baa ku filan dadkeedaa ku filan soomaaliya oo dhan iyo ummadda soomaali baa taageersan shacabka puntland dowladda waa shacab dowladda puntland iyo shacab dahabay haysataa shacab aan wax loo la midaaba jirin adduunka haysataa waa salaamaya shacabka puntland oo maaragtay hiliyahooba la garab taagnaa gaar ahaan jaaliyadda maraykanka ingiriiska meelo badan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa marka shacabka noocaasaan haysanaa marka maba u baahnin baan ugu midda kale dowladda federaalka maxaa uga baahannahay dowladda puntland baa ka xoog badan sidaan sheegay waxaan rajaynayaa 2026 madaxweynaha Siciid Cabdullaahi Deni inuu ka noqdo Soomaaliya midnimadeediina soo celiyo sababtoo ah isaga argagixisadii la diriiray kana adkaaday Soomaaliya waxay ku maamulaa ninkii xoog badan baa xaajo u toostaa asaga xoog badan asagana adkaaday ninkii xoog badan baa xaajo u toostaa marka madaxweynaha runta waxaa la dhihi karaa mudane Siciid Cabdullaahi Deni baa la dhihi karaa walaa waayahay waxaa jirtay in aad hees u samaysay ciidamada dowladda puntland ee qalabka sida dhinacna habgaan baad ka tahay bal dadka ku dhagaysanaya meel walba kaala socda bal maxay yihiin heesahaas aad ciidanka qalabka sida ee puntland aada u samaysay? xaajile kamaan aad iyo aad baa umahadsan tahay waxaan ugu talagalay geesiyada soo majeystayaasha ah ciidanka puntland baan ugu talagalay marka heeskaasi waxaa la yidhaahdaa magaciisa tigaalo dee qofkii soomaali garanaya wuu garanayaa waa wax la tiigsanayo ama saas loo soo haabanayo guulaha gaareen baa ugu talagalay waana sameeyaa suugaantana waa aruuriyaa taariikhaha iyo suugaanta waxoo dhan waa aruuriyaa marka heesta waa sifeeyey laxankeedii waxoo dhan waa diyaar laxan oo waxaan saaray oo laxanka maaragtay gaariska marka heestana dee waxaa iskale soomaaliya oo dhan iyo ciidamada qalabka sidoo dhan waa hees wadaniya xanaaniinta soomaaliyeed baa qaadi doona ciddii inay rabta ay qaadana dee waa u dhiibayaa heela soo xiriirta adiguna waa u gudbinaysaa maxamed xaajile kimaano gaar ahaan fanaaniinta puntland maadaama ciidamada puntland geesiyaasha ay guulaha gaareen baa ugu talagalay heese kale iyo waxyaalo kalena waa soo wadaa dadka reer puntland oo siday isugu toosan yihiin maanta waxaan leeyahay ninkii ka baxa barbarkay ka baxdaa waa bakeeqaleen ninkii ka baxa waa baylah siday isugu toosan yihiin isugu toosnaadaan heese kale iyo waxyaalo kalena waa soo wadaa suugaanta in badan baan ku dhex jiray ilaa 3 sano laakiin in badan baan ka maqnaay haddaan kusoo laabtay. waayahay waa mahadsan tahay siyaasi fariinta aada la wadaagayso shacabka iyo madaxda sare ee puntland maxay tahay? fariinta aan la wadaagaya maxamedo waxaa weeye ramadaan kariim baan horta u rajaynayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan bishaan barakaysan 13 beri baa ka haray ilaahay khayrkiisa hana siiyo ciidana ilaahay nabad hanagu gaarsiiyo fariinta aan la wadaagayna waxaa weeye hawl kama daalo weli waa hogadii haliyeyga dalka haliyeyga waxaan leeyahay hawl kama daale weli waa hogadii haliyeyga dalkii dadkiisa u halgamayo hawl kama daaleen leeyahay heestaasna waa u tirinayaa sidii isugu tiirsan yihiin dadka reer puntland shacab iyo dowladba sidii ay isugu tiirsaneen baan leeyahay qolada xamarna waxaan leeyahay hakadaysa sidaan sheegayba maaragta gardaabeynta iyo maaragta waxaan kaloo dhahayaa qoladaas weliba xashiiq waxaan leeyahay eedaysano
والو أركا والو أوجي هاي إشكي دبي هوركن أوجي هاي والو أبال مرين إلى سنة مركان لي يعني وحن كودا يعني أقدمين كاس هستاس نكال ساعة marka xajilka maana sida intaasaan maaragtay ku gabagabeynaya